بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waan salaamayaa. Salaanka gadaal saaka waxaan rabaa inaan la wadaago fariin ku saabsan dhibaatada gaarka ah, dhibaatada guud ee caalamka oo dhan maanta saameysay, si gaarana dalkeena dhawaan looga sheegay in ay wax ka jiraan. waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed in horta Ilaahay waxaan u baryayaa in dadka Soomaaliyeed Ilaahay ka badbaadiyo. Ilaahay weligiisba asigaa masuugooyinka jiray, intii duruufaha gaarka aan ku sugnayn Ilaahay naga badbaadi jiray, tanna in Ilaahay naga badbaadiyo ayaan Ilaahay ka baryayaa. intaa kadib dadka waxaan kula dardaarmayaa in ay dadaal badan muujiyaan, in aan la dhayalsanin, in aan maxaanku idhahdaayo loo qaadanin in ay wax walba sidii caadiga ay diinay sahlan yihiin, in nadaafadda lagu dadaalo. qofku inuu xoolo haysto inaanu xoolo haysanin ma aha. nadaafadiisa heer kastoo ku dadaali karaa, inta ay hadba awoodiisa siiso inuu nadaafadda ku dadaalo, in maxaanku idhahda laga dhowrsado, laga fogaado meelaha loo badan yahay isu imaatinada iyo ismucaanaqaynta ama hab isisiinta dadka Soomaaliyeed caadada ay u leeyihiin. ayadana baryahan in la joojiyo, salaanta gacanta in la yareeyo, salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ayaa dadka ku filan. in la isku salaamo, in aad iyo aad loo yareeyo, dadkuna in ay dhaqdhaqaaqa intay yareyn karaan ay yareeyaan, anigoo og in dadka duruufo gaar ay ku sugan yihiin oo inay dhaqdhaqaaqaan noloshooda ay ku xiran tahay. haddana intii la yareyn kara dhaqdhaqaaqa in la yareeyo, isu imaatinada in la yareeyo, maxaan ku meelihii lagu kaftami jiray lagu cawiyi jiray inaan la tegin, laga dhowrsado. intaa kadib annaga weligeenba wuxuu Ilaahay nagu badbaadi jiray diinteena islaamka, qur-aanka kariimka aan akhrisano. dadka Soomaaliyeed aafooyinkan iyo masiibooyinkan markay jiraan sida Ilaahay buu noo sheegay waa in la badiyaa, rabbi tuugana waa in la badiyaa, waana in la badiyaa akhriska qur-aankana waa in la badiyaa, si fardi ah iyo si jamaaci ahba qur-aanka ha loo akhriyo. Ilaahay aa nagu badbaadinayo, Ilaahay aa nagu soo badbaadiyo wixii hadda ka horreeyana. intaas kadib waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed Ilaahay hana badbaadiyo, asiga ayaa na soo badbaadi jiray duruufihii aan ku jirnay oo dhan. dadkuna dadaal ha muujiyaan, ha la iskaalmeeyo, ha la isu qalbi samaado, ha la iscafiyo. qalbi samaan ayaa looga gudbi karaa haddii alla yiraahdo, ayaa kamid a waxyaabaha loo gudbi karaa. ha la isu qalbi samaado, walaalkaa cafi, walaashaa cafi, maxaanku idhaha Ilaahay u dhawaaw, baryada Ilaahay badi, qur-aanka akhriskiisana badi. Ilaahay wuuna badbaadinayaa, Ilaahay idinkiis insha allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.